xusaya oo farxad weyn maanta runtii qalbigeyga gabar injineeriyada inuu ku jiro koronto tababar qiimo gooni ayuu lahaa oo sababtu waxay nagu jirtay oo aniga ilaa sanadahan dambe aan arag gabar Soomaaliyeed oo injineerada oo u soo jeeda inay koronto ka qayb qaadato inay horumarintiisa ka qayb qaadato isla markaa inay tamar ka qayb qaadato waa markii ugu horeysay oo aan arko gabar ka shaqeynaysa fiildiga korontada runtii waxay ilaahay shaqo haad ah oo aysan gabar ka shaqeyn karin dhalinyaro meel isku yimid yaa waxaan uga shaqeeyay war gabar injineeriyada ku jira korontada mid baa soo booday oo korontay bar gabdhihii ha war wadankan gabdha qabsanayo ma ahayn xilli ama dream ay noqdo hadhow inuu wanaagay markaan koro engineer baan noqonaya marna igu jira caadi sida caruurta caadiga waxaan rabay markaan dugsiga sare gaaray inaan go'aansado waxaan rabay inaan qabto Gambool baan ka baxay 2010 scholarship baa helay oo ah electrical engineering hal wiil engineer ma baranaysa waliba markuu scholarship ka soo baxay saddex wiil iyo anigu noo soo wada baxay qoladii soo saartay waxay tiri iska daay wiilku bedelay gabar engineer qaadanaysa meesha khalad ku soo galay wala iska kiiwidiin iska hay engineer ma dhiganaysa هذا لا يبدو كذا نقطة وهذه أبي بقول واحد scholarship يصبح engineering وهذا يحتوي من قوي هرتا analyst لكن هو يقولها ما لسه electric engineering فهذا أنا الموضوع هو خبرني اسمها بالرئية سادة بدكم مشكلة يستبدون قضاء خبرنا يعني حش شقة إياك شغاليسية يتوقع صنع غير بسوي جريسة شكل هو خبرتها وحصدهم كصنع أفرتهم كصنع صاصعة shaqo adoo boorina maalin walba ka soo noqoto ku qanacsan inaad jidka tagtid mise waxa ku faraxsantay oo maalin walba isleedahay maxaa sameeysaa bari waxa ku soo kordhisaa bari maanta waxa sameeyay wax kale ku sii siyaada faraxsan tahay ma hadan shaqo kale in noqoto marba hubbi baa rabay in noqoto waxa ku faraxsan maalin walba ka sameeyay dad alxamdulillah rabbil caalamiin shay iga soo gudtay أنا مركز جامعة جيل سنة كوبات يعني مركز الله الصومالي السودان نيجيريا الجامعة جوسو جريا ما قبيل اللي جورا من ده هنبا ما كان مركز الله حلي هاي مثلا حنا شيء تويل يشان قبضات يعني مقبر صواني جديد براني ساكاسو فكانيسي مركا يعني سو ولا يا بس waxay kula tahay waxa yani imagine mid marka dhiganayo saddex waxay lahayd faculty takhasus oo ay telecommunication ka ah iyo controlling ka iyo power gabdhaha badankooda marka takhasus la gaaro waxa la wada qaatay telecommunication dabcan gabdhaha dafcada la dhiganayo marka laga tago Suudaanta Soomaaliya shan baahayeen gabdhihii kale waxay aadeen telecom إذا كل يد حق سؤال باور انجينيرين مركا طبعا قف قان كيس إنه ربطان كيس كذا بينا حقوقي يعني هل كي قبلي كلام مرة مو مرين لكن رغبة هذا يربطان كذا كذا بس ويحكوا لي رتين باور كي أي نلاصق قشة مركا الصومالي إذا إلى جورنا جاهد لكن قبلها السودان يكوب الناين قان كل إذا مقالة مسكتي سام مقالة عبسوي بتشفتي هذا مركا وضع نقطة الحمد لله رب العالمين تاسع عايز أنت دجال هاي ضح كوفي أما وح الصبح والبمركز سوق أتلاهي وحكون فرحسن تقوتين كعاجزين عسى مثلا challenge وحقات إنا برتو وحكون فرحسن سوق الوحش على هاي عندنا ليه الحمد لله رب العالمين ويسوع لماتي هل كان إمادي مرة قرر واحد لما ضد مركي وذيهين كل يوم صور إيه أنا أقول أنا كدوان هيك قبر بأنا إنجنير مركي اللي هذا واحد لما درهم في عن إنا هاي وح عن كل يوم هاي waxaan islahaaba anigu jeedooyinka u qaatay waxa kamid ah kulliyadahan kale aad baa loogu batay majaalka shaqadan oo yari meel aan lagu tiro badnayn zaxmad badan ka jirin hadaa tagtid shaqad ku yeelaysaa xataa hal agoor baa tahay hadda xaqaas oo naag hadda waxay ka qabanaysaa buuraha oo nin baa taa kaliya inaan ku dhex jirto oo kaal adigu gabar baa tahay cimrigaagu waa yaryahay ma buuraha iyo hadda bilaas loo fuuleen baa tahay iska daa gabartii taxadiga Soomaaliya qofka soo kuliyahay ma shan sano koronto baranaysaa أنا قبض الصومالي ها كرتة حتى يهميدي يوحى لو قابل لو شيء ما فهمسنه أنا حارق يعني فيلم اللي سوي جدي يقول له جري ما لويت اللاين بالقاضي هالكان اللاين ميديم اللاين لو بالقاضي يوحى المرني حافظ أنا هذا ولسه جاري عقارنا وحجر كروب على هالفوضى جاري جي هالكان صومر وعند اللاين كاس شقة واحد يدني استعجال يسوي في رير مين نحشون قبل ميلا ساعة الحيط gabdhaha markii laga badan waxa laga yaabaa inay xishoodaan oo gadaal u haraan laakiin gabadhan waxay gabar soo jeeda indha furan wax korsada rabta codkeeda la maqla rabta isla markaana voluntary ah wax walba la sameeyo ayada dadku ugu horeysay ayada sabuurda iimaanaysay ayada su'aasha weydiinaysay macna runtii wax oo dhawaanaan dambe aan la arag oo macna iga maqnaa
ayay igu soo korisay runtii waana hadda gabar waxaan isleeyahay hadde qofka bilaawgiisa laga arkaa meeshuu gaarayo siduu yahay hadda gabar higsigeedu uu dheeryahay inuu yahay ayaan arkaa waxaa wax badanna runtii kusoo kordhin doonto dhinaca korontada iyo tamarta dalka laakiin waxay ahayd qof geesiyada oo runtii ku dhiiran waxa ay soo baratay isla markaasna doonaysaa inay horumar ka gaadho oo su'aalaha badan oo dadku ay weydiinayaan iyo maxaa koronto ku dooratay iyo aysan ahayn qof ahaan jabinaysa waxaan arkay ayadoo oo xilligii la xirxirayay taawarada tuubiinka boolal xiraysa oo moogtahay ku jidha technicianskii aniga cabduqaadir ahaan haddaan maanta example ka soo qaado shirkad iiga furnaan lahayd meeshaan laba calisna ma weydiineen gabadha anoo waxba weydiin way la shaqaynayd ilaahay lagama rajo dhigo ilaahay waxaa gacantiisa ku jira laakiin sida hadda markaa imad barar nafsa loo soo dhaweeyey oo yiraahdaan gabar wax ku waayimaysa mise sharaf tale oo cilmi cidi soo dhaweyn soo dhaweey waxaan ka rajaynaya cabdifataax iyo shurat iyo ka jirmaanka cabdinaasir iyo isha horliska dhamaan inay shaqaalaysiin